xilligan fashilkii ugu darnaa ayaa hareeyay qorshaha gulufkii ka dhanka ah al-shabaab ee uu kal hore iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana meesha ka baxay moralkii iyo dadaalkii loo hayay dagaalka dib u gurashadii ciidamada dawladda ee inta badan saldhigyadii ay ku lahaayeen Shabeellaha Dhexe oo ugu dambeysay Aadan Yabaal ayaa noqotay mid beelaysay mirihii halganka socday waqtiga dheer waxayna taasi soo dadejisay in goobahaasi muddo kadib ay dib uga arrimiyaan al-shabaab habacsanaanta iyo fashilka hareeyay howlgalka ayaa keenay in mucaaradka ay ku halqabsadaan orahyo kululna ku weeraraan madaxweynaha maadaama gulufka uu maanta joogo halkii uu ka bilowday madaxweynaha oo arrintan u tun weyn ku noqotay ayaa waqtigan ku howlan sidii uu isku shaandheyn iyo wax ka bedel ugu sameyn lahaa golaha xukuumadda waana mid sidoo kale ku foogan in dhiig cusub uu ku soo biiriyo hay'adaha amniga si gulufka uu dardar ugu bilowdo isbarbaryaaca macawisleyda iyo ciidamada dawladda oo lagu daray istiraatiijiyad xumo iyo saameynta xubnaha al-shabaab ay ku leeyihiin ciidamada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin qodobada ugu waaweyn ee sababta u ah fashilka dul hoganaya dagaalkii uu ku baaqay Xasan Sheekh madaxweynaha ayaa sidoo kale codsiyo kala duwan u dirsaday dalalka taageera Soomaaliya si looga caawiyo dagaalka kooxda al-shabaab waxaana markii ugu horeysay codsigiisa ka soo jawaabtay dawladda Turkiga ayaa 500 oo askari u soo diray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho taas oo ah wajiga koobaad ee qorshe ballaaran oo ay ugu talagaleen inay gaarsiiyaan ilaa 2500 oo askari si loo xoojiyo difaacyada dawladda Soomaaliya bishii Luulyo ee la soo dhaafay baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay mooshin uu u gudbiyay madaxweynaha dalkaasi kaas oo ogolaanaya in Soomaaliya la geeyo ciidan muddo 2 sano ah si ay u taageeraan ciidamada ammaanka Soomaaliya sidoo kale waxaa kulankan baalo ku yeeshay ciidamada qaybta ka ah howlgalka Awsam ee Soomaaliya waxaana jira xogo sheegaya in Masar iyo Itoobiya ay Soomaaliya u soo dirayaan bishayna soo aadan ciidamo gaar ah oo aan howlgalkan qayb ka ahayn kuwa oo ku imaanaya dalab uu dawladahaasi u diray madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed ayaa niyadjab ka muujinaya ciidamada shisheeye ee dawladdu ugu yeeranayso dagaalka al-shabaab kuwa uu imaanshahoodu ku soo beegmayo xilli ciidamada dawladda Soomaaliya ay la kulmayeen dhawaanahan guuldarooyin xiriir ah waxaase shacabku ay ku talinayaan in la dhiso ciidamada niyad ahaan iyo qalab ahaanba loona muujiyo kalsooni si ay uga soo dhalaalaan doorkooda ah ku filnaanshaha ammaanka dalkooda maanta iyo mustaqbalkaba